shirkadu balaaran oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 130 aqoon-yahan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda iyo madaxyana leh heerar kala duwan ayaa maalintii Sabtida ahayd ee bishan June ay 19 ku beegnayd waxaa lagu soo gabagabeeyay jaamacadda magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka shirkani oo soo diyaariyay ururka macadka daraasaadka arrimaha geeska Afrika ayaa mawduuciisu waxa uu ahaa dib u eegidda iyo hor u eegidda xaaladda Ogaadeniya ee qarnigan 21aad shirkan ayaa waxaa furay duqa magaalada Minneapolis RT Rayback kaasi oo soo dhaweeyay qabanqaabiyaasha shirka iyo dadweynihii shirkaasi yana ka soo qayb galay ciwaanada shirka laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa nabad ka dhisidda geeska Afrika shirkan oo ay ka hadleen aqoon-yahan hay'ado kala duwan cilmi baarayaal iyo muwaadiniin reer Ogaadeniya ayaa waxaa la isku meel dhigay in qalalaasaha gobolku aanu marnaba degaynin ilaa oo xal waara laga gaaro mushkiladda waddanka aan deganeyn ee Ogaadeniya sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay nin ka socday dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee caalamiga ninkaasi oo lagu magacaabo David Michalki ayaa si qoto dheer uga hadlay caqabadaha hortaagan kaalmada bini'aadanimo ee u furin lahaayeen shacbiga tabaalaysan ee Ogaadeniya taasoo uu sheegay in dawladda Itoobiya ay aad u xadiday meelaha ururkaasi ka howlgali karo sidoo kale dadka shirkaasi ka hadlay waxa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Christine Kostag oo wariye ku nool North Dakota taasi oo iyadu ka hadashay xasuuqa ka socda Ogaadeniya gabadhana ayaa iyadu waxa ay bilowday wax qoridda Ogaadeniya kadib markii ay daawatay filimkii oohinta qarsoon sidoo kale dadka halkaasi ka hadlayana waxa ka mid ahaa aqoon-yahano ka soo jeeda Ogaadeniya oo ay ka mid yihiin Dr. Maxamuud Waas Maxamed iyo Fawsiyo Cabdilqaadir oo iyadu ah madaxa cilmi baarista ururkaasi haasa aqoon-yahamintaasi iyo kuwa kale oo badan oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxay isla meel dhigeen inaanu degaynin qalalaasaha ka soconaya geeska Afrika ilaa iyo inta xal waara laga gaarayo mushkiladda Ogaadeniya madax ka tirsan dalka Mareykanka hay'adaha xuquuqul insaanka iyo cilmi baarayaal caalamiya kuwaasi oo soo bandhigay dokumentiyo cadeynaya mushkiladda iyo tacadiyada aadanaha ka dhan ee Ogaadeniya ka jira waxaana ka mid ahaa dadkii madashaasi ka hadlay aqoon-yahankan crimes against humanity in the past in the 1880s it wasn't called crimes against humanity it was called an expedition dambiyada aadanaha ka dhanka ee Ogaadeniya waxay soo dhacayeen tan iyo 1980aadkii waxaa loogu yeeli karaa dunuub aadanaha ka dhan iyo xadgudub anigu ma garanayo sababaha ay xadgudubyada caynkaasi u geysanayeen dilka iyo barakacu halkoodii ayay ka sii soconayaan sidoo kale 2008 Human Rights Watch agaasimaheeda Leslie Lefkow waxay soo bandhigtay warbixin midaasi oo kale ah waxa ay warbixintaasi cadeynaysay dambi kaasi hore la mid ah taasi oo ah 100 sano kadib haba yaraatee wax Itoobiya iska bedelay ma jirto ma rabo inaan wixii hore ku dheeraado ee waa inaan horay u soconaa waxaan soo jeedinayaa siyaasad aan ugu magac daray mid isbedel keenaysa si dhibkani loo xalliyo taasi oo ah in la bilaabo sidii dadka rayidka ah ee Ogaadeniya samafal loo gaarsiin lahaa loona soo afjari lahaa khilaafka siyaasadeed ee gobolkaasi I so sad the want that today you hear if an Ogaden Somali says okay I want to decide my own destiny it's like oh you're destroying Ethiopia kulan weynahani laga hadlayay arrinta Ogaadeniya oo si rasmi ah u soo gabagaboobay 19 bishani ayaa shalayto axad ahayd waxay wufuudi halkaasi soo timid yeesheen kulamo gaargaar oo ay ku kala xog qaadanayeen haddaba wariyaha Radio Xurriyo oo ka soo warama dalka Mareykanka Darbaweyne ayaa waxa uu halkaasi nooga soo diray warbixin ku saabsan sida uu kulankaasi u dhacay iyo codka qaar ka mid ah dareenka dadkii goobjoogayaasha ahaa shirkan oo ka socda jaamacadda weyn ee gobolka Minnesota ee loo yaqaan University of Minnesota ayaa waxa uu u socdaa si aad iyo aad u habsan hadaba shirkan oo aad iyo aad ay uga soo qayb galeen dad aqoon-yahamiin ah siyaasiyiin iyo hogaamiyayaal aad u culus ayaa waxa ay bulshadii reer Minnesota ay soo dhaafisay hoolkii weynaa ee lagu qabanayay shirka hadaba shirka oo socda ayaa waxaan fursad u helay inaan fikradooda ka weydiino dad ka soo qayb galay shirka magacaaga ku bilaabay shirkan oo shalay bilowday seedu arkaysay shalay iyo maanta inta uu socday maxaa se kaaga kordhay adiga
dad fara badan oo aqoon-yahano ah oo midabo kala duwan iyo jaamacado kala duwan iyo wadamo kala duwan leh baa halkan yimid waxa laga hadlayaana waa qadiyada Ogaadeniya iyo sida ay macnihii u tahay wadnaha dhibaatada geeska Afrika ee xal ahaan ugu baahan tahay waxaan oran karaa waa shir aanu gumaysiga Ethiopia ku tusayno in hadaanu nahay reer Ogaadeniya aanan ahayn sida iyadu adduunka ka gaday ee ahaynaan dad xoolo aan waxba aqoon aan nahay aan tusayno in aanu dad aqoon leh oo hogaamin kara dadkooda oo runta iyo dhabta u soo bandhigi kara adduunka waxa ka jira Ogaadeniya iyo waxa aanu nahay iyo xaqiiqda geeska Afrika iyo sidaan anagu nahay wadnaha nabadda ee geeska Afrika taa waxa waliba dheeri ah weelashii ay beenta ka buuxiyeen adduunka yilay ayaan run ku bedelaynaa oo dagaal ku dhinac kasta uu ka socdaa baan oran karaa dadkii oo ka soo baxay shirka ayaa halkan ila taagan seedarkiisa shirka maanta maalintii labaad shirku wuxuu ahaa shir aad iyo aad u wanaagsan si aadan looga soo qayb galay yani dhammaan bulshada Soomaaliyeed khaasatan bulshada reer Ogaadeniya wuxuu ahaa mid guul ku dhamaaday 100% guul ku dhamaaday la dhihi karaa waralaadigu seedarkiisa shirkan waxaan arkayay shir aad u wanaagsan oo ku dhamaaday guul oo last 2 days aan joognay wax wanaaga oo gobolkan dhibaatadu ka jirto oo ka hadlayana ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una baraarujiyay shirkani ummadii meeshaas ugu timid aad baad maasantay hooyas adoo magaca ku bilaabay sideed arkaysi shirkan bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ah Xalimo Xaaji Cali waxaan u arkayay shirkan sidoo ku bilowday iyo sidoo ku dhamaadayba insha Allah guul iyo gobonnimo noo bidhaantay oo yaano himadanada iyo aragtidanadiiba kor u qaada insha Allah asaga oo shalay markii shirku noo bilowday aan haddana daawanaynay muxuu barnaamijii ka muuqday maxkamadii Hague aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waxaan u malaynaynaa in dhibkii iyo culayskii uu soo gabagaboobay oo ay tahay in macal usri yusra insha Allah hadaba shirkan ay ururkan soo abaabuleen ayaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah oo si weyn loo soo agaasimay kasoo qaybgalayaasha shirka ayaa waxa ay ahaayeen dad aad iyo aad aqoontooda u heer sareyso siyaasiyiinta ayaa ayaguna ahaa dad rugcada ah oo aad ugu takhasusay siyaasadda Ogaadeniya ayadoo ay shirka kasoo qaybgaleen dhammaan bulshada reer Ogaadeniya walaalaha Soomaaliyeed iyo ajnabiga iyo ardayda University of Minnesota Maxamed Darbaweyne Radio Xuriyo Minneapolis mahadsanidin kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Darbaweyne iyo Cabdiraxmaan Sheekh oo idin la socodsiinayay barnaamijkaasi xogti ka maqnayd iyo xaaladihii qarsoona kala saxa Radio Xuriyo hoyga wararka Ogaadeniya codka shacabka khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socdo idaacadeeni galabnimo inta ayaan ku soo afmeeraynaa waxaanan idinkaga tageynaa heestii hal ku dhageedu ahaa nabadiida nuug balaayada iyo abwaankii Maxamuud Cabdi Kaadheeri iyo nusqan ururto nacli biiriyo wax la nacayo nijasaa iyo nusqan ururto haddad nadalyohow inaad nimxadaan anna waxigayaga ha ku nagaatood ama la ku heshaan sondiyo toodna wilaysen nujinaysida حتى النادى اليوم هنا نمحضان أنا وحيقا يغا أكون نقاتون أما الله كوها شانسون ديو تودنا ويليسين نجين ميسيدة هنا بنقطون نقا قورتي النبات جيدايا هنا بنقطون نقا قورتي النبات جيدايا حصلشي النار تقول الهوس إذا الناس دي حبلتاونو حصلشي النار تقول الهوس إذا الناس دي حبلتاونو